subeer maxadow ilaa xalay waxa baraha bulshada haystay inin ooyeysa oo Mareykanka joogta sida sheegtay oo kugu eedeysay inaad ka lusantay $15,000 Mareykanka arrinta maxaa ka jira walaal marka hore ma santa hortay waana loowahay wadniyo arrinkaas waa arrin jira weeyaan inantaas waa inan jirta waana aan in badan asxaab ahayn oo Mareykan joogta inanta waxa jirta inaan asxaab dheer ahaan jirnay inanta kadib ay barda xabiloonay inaan xiriir yar aan bilownay kadib xiriirkii waxaan iyadu go'aansatay inaan xalfad aroos dhigano oo ma meher dhigano kadibna qarashkii ku baxayay wixii ay diyaariso ay tiraahdo aniga ayaa diyaarinaya markii ay diyaarisay xalfadii lacagtii ay xalfadda ay tiri anaa bixinaya kadib aniguna hawlaan iskaga jiray kadibna waxaan ku walaalay anigu arrinkan ma gelayo lacagina waxay soo dirtay rag asxaabtayda kamid ah way soo dirtay oo soo dhaxmarisay yaana waxaan ku arrinkan ma ku jiray lacagtaana intii lahayd celiya aniguna xalfadda iyo meherkaayo waxa reeri ma wadi marka lacagtii intii oo reeri waa loo celiyay intii oo reeri lacagta waa loo celiyay wax lacag aan hayna ma jirto waxaan ka cunay ma jirto video bay soo duubtay way kugu eedeysay lacagta in ka lunsatay arrinta maxaa ka soo gaaray niyo arrinta hortay social media laba casho waan qaatay shalay la xalay waan qaatay niyo aniga hortay dhibaatada weyn iga soo gaadhay waxa kamid ahaa in aniga la soo aflagaadiyay in aniga family la soo caayay in meesha lambarkiisa ku yaalo qof dhan oo lambarkiisa social media dhigo waa iska shaarday lambarkiisa social media lagu sheegariyay waa dareemaysaa wax soo gaaraya ay qof kasta waliba waxa ugu badnaadaan dadka ay sheegatay tiri qolada waxaan ahay daarad baan ahay dadkaas ugu badnaadaan yar iyo weyn islaan inaan yar oday dhamaantood ma kala harin walaa islaantood weyn soo caayisay waa dhalinyarada soo caayinayeen marka dhibaato iska dareemaysaa wasahay intan hadii aad ka cudur daartay sababtay dadkan kale lacagta soo marisay maxay tahay iyo horta raggaas aniga asxaabtayda ii dhaweeyeen saadabteed iyaga ayaa ku dhahay arrinkii markii anigu guurkii aan ka soo horjeestay raggaas la kaashatay raggaas anaga ku dhameynayna ninkan anaga ka adag anaga ku soo qabanayna anaga dhameynayna saadabteed hawsha gal intaas isku diyaarisay raggaas isku hadlaysay raggan waxaan ku yiraahdaa arka kuma jiro sidii inta baan u sheeganay aan u sheegay marka sidaas inta lacagteeda ku haysataa aniguna nin guur reedi u ahaan maan ahayn lacagtina waa wanu celiyay waxay wadana dayada ma fahmi karo wallahi maadaama intaas 15 inta hal qaabtay 15 kana bixinaya xalfadii arooskeena iyo meherkii wixii baa ana bixinaya adigu sababtaad ku diiday maxay niyo hortay marka hore qof kasta dooq ayuu leeyahay guurkuna anu labaan oo qana guurku waa guur inta gabar soo guursatay aad guur la degtay weeyaan wada halka guur isku guuleysatay midna waa mid inta gabadh ciyaalkeeda iyo wadatay iyo wax inta degtay aad u guursatay waa nin waxa guur lama dhigi karo waa nin la degay weeyaan ama waa nin kaam galay weeyaan marka anigu inaan yaro heli karayo qof caadi ah oo inaan caadiyada oo aan meel guri wada samaysano maxaa reeriyo dejinay ma kaam gelinayo walaal